داود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا وناكسن ومركله يدريس محمد بشير برامج كذا نتحنا نديس وجود بيننا قبته وهرجيسة وحنا نقوله ولا جدونا حلقا سودوينتي مقالة هرجيسة ما أنت لو جسمي فنانة دعان كفرحية كبيرة بالهذا انتنا ير أو أنا كهذا الأرنتاسي ورنتي قبني ماذا كده عادي ما يشاس عيد والباركسي شرفتي كرام ماذا ما يشاس كده عادي فناندا waxaan ka hadli doonaa muuqalantii fadhiye kabeere maqaam noocaas in Soomaaliland loogu soo dhaweeyo muuqalantaas fanaanadaasi in sidaas loo boonbooniyo isla markaasna runtii shacabka iyo dawladda iyo cid walba sida loogu kaco kuwa badan xaasidiin ah oo cunfi iyo maaragtay cunsurnimo badan baa inta badan waxay odhan jireen farxiye kabeere waa fanaanad qabyaaladeysta ama fanaaniinta lagu tiriyo inay qabyaalada inta badan ka hadlaan haddaba waxaan idin daawasii doonaa intaan arrintaa guda gelin in yar la daawada warbixintan quruxda badan iyo hadalladii goobta laga soo jeediyay kadibna inuu guda gallo oo ka hadallo insha Allah arrinta iyada looga jecel yahay kisaaka waa ceeriyoon meel kala maraa la yahay sababtu wax kale ma aha qofka yimi waa qaaliya waa fanaanad qaaliya waa fanaanad aan jecel lahay waa fanaanad aan jecel lahay codkeeda waa fanaanad aan jecel lahay dhiiranideeda iyo waliba codkarnimadeeda haday hadal tahay haday hees tahayba waa fanaanad magac weyn leh oo laga taageero meel walba farxiye saaka waxaan leenahay farxiyay magaalo waliba waxay caan ku tahay burco kaftanka iyo hadalkay caan ku tahay boorana aqoonta iyo cilmiga caan ku tahay hargeysana fankay caan ku tahay waxaa timi magaalo faneed maanta maxaan ku dhadayay farxad bay noo tahay fanaanad qaaliya khaasatan waliba anigu aad u jecelahay heesaheeda iyo naxariisteeda xaqiiqdii dadka ma garanaysaa ay had iyo jaraalo ay u hadasho waxaan leeyahay Soomaaliland ku soo dhawow waanu ku soo dhaweynaynaa waxaanu ku leenahay dalku waa dalkaagii maxaan ku leeyahay saxaafadii fanaaniintii shicibkii kale waxaanu ku leenahay ku soo dhaw dalkaaga shay aan jeclahay aan taageero hadalkeega codkarnimadeeda heesaheeda inaan ku soo dhaweeyo madaarka Hargeysa waxaan leeyahay walaal Hargeysa ku soo dhawow insha Allah inaan burcan ku wadi doono hadii كلي مجالده قبو يحلقنا الله ساك إنه أنتي ناس سقف صباح ذي هدي أي قلب أما الظهر كسب بيج من لهيد نوحنا مرينا عيد دوين دقائق لهيد ولا شيء فرحي صور دوبان لي هاي يأجلن صالح ومتان سيدي وقرب كيجي شوكته يدا نصور دوبان لي وحير كسوه الرئيسي ما أنت اسمه تجين إنه حويان قروح ذا بدني فتحين صور دويننا سيدين عنك كواهين غير Somaliland أنا welcome to Hargeysa كورن ماي welcome to Somaliland دونا كسوغان ربوتكن iyo soo dhaweynta balaaran soo dhaweynna fanaanadeena inaan jecel waxa laga garanayaa shantii baan joognay madaarka sidaas uma aan waxaanaysa sheekadu marar badan oo kala soo noqonayna walaashay dawdil hadii inta kaga soo laabano oo dhahdii shacabkii soo dhaweeyay ama fanaaniintii suxufiyiintii cidii kasta soo dhaweysay waxaan hadaba aan eegi doonaa bal Fadhiya kabeeriyada qudheedu maxay ka tiri soo dhaweyntan maqaamka siraaha ee lagu sameeyay caasimadda Soomaaliland in yar aan idin daawasiyo muuqaal kamid ah Farxiya oo ka hadlaysa arrintan kadibna isku soo laabano faraxsanahay waxa way safaradu iskuma jiraan safarkan waa iga duwan yahay safarada kale aan adduunka aadi jiray waxaan joogaa Somaliland gaar ahaan waxaan joogaa caasimadda Hargeysa hamigaygu wuxuu ahaa inaan imaado ilaahay maanta suuro galiyay waxaan dhammaan u mahad celinayaa fanaaniintayda abwaaniinta shacabka dadka ay wada jecel ee walaalahay ah ee aan jacaylkooda halkan ku imid waxa waaye lama soo koobi karo farxadayda waa idin jeclahay subax aalasayn ku soo beegmay falayd galaba waan waayay saasoo tahay waxa waaye wax halkan dhooban waa dad jecel oo ii soo kalahay marka waxa waa war leema wadaynaahe waxaan leeyahay taageerayaashayda especially taageerayaashayda reer jamhuuriyadda barakaysan wax badan waxay tireenaa Fadxiyada afgabaadsiga iska daawaan imaanaya beenta weeyna meedan imaanayn dhukura dheema waa joogtaa kabta xaaji in the house waxay ka maanta waxay ka sheegtaa Hargeysa waa isla joognaa love you guys dawdil Fadhiya hadalkeeda si wacan bad maqlaysan runtii si sharaf leh dhiranaan leh wadankeedii inay joogto magaaladeedii dhulkeedii inay joogto ayay uga hadashay waa si loo baahan yahay
marka horeba fanaaniintu maaha in qabyaaladii cunfiya ahaasnimo la geliyo haddii jira fanaaniinta Soomaaliland ka soo jeeda kaliya baa la cunsuriyadeeya oo lagu sheegaa markii qofka ay arkaan inuu fanaan yahay oo dalkiisa jecel yahay maxamed BK oo kale inuu maaragtay cunsuri balse laakiin anigu waxaan aaminsanahay fanaanku meesha doonaa ka soo jeedo dabcan fanaaniintu ma habboona in la kala qaybiyo in cunsuriyad iyo maaragtay qabyaalad la dhex dhigo fanaanku anigu waxaan aaminsanahay ama Muqdisho ha jooga ama Jigjiga ha jooga ama Hargeysa ama maaragtay Djibouti inuu ama Kenya ha joogo inuu fanaanku yahay fanaan afka Soomaaliga wixii ku haysto dhan u dhaxeeya balse ka lagu naco maaragtay wadankiisa inta Muqdisho u haysan kuwa Muqdisho jooga dayaxdal warsho kale ayaa kamid ah fanaaniinta Muqdisho maalin walba Muqdisho iyo Soomaaliya u haysta hadina caasimadda Soomaaliland Hargeysa markasta xitaa fasax iyo toddobaad ayuu yimaadaa dhalinyarada shacabka cid allaali cid la hadasha ma jirto si maqaam sare leh baa waliba loogu soo dhaweeyaa oo sharaf iyo karaamo leh sidaa daraadeed ma aha fanaanka hadduu calanka Soomaaliland qaato in la aflagaadiyo taasina waxay sababaysaa in maaragtay qofka lagu naco Soomaaliland kuwa kale marka maxay naga soo doonayaan bay noqonaysaa aad iyo aad waxaan u soo dhaweynaynaa shacabka reer Soomaaliland ugu hambalyeynaa sida sharaftii karaamada leh ay u soo dhaweeyeen fanaanadaasi Fatxiye Kabayre waana lagu tilmaami karo fanaanad sida kuwa xaasidiinta inta badan dadka aflagaadiya ama maaragtay qabyaalada ka sheekeeya aan uga hadli karo inay tahay gabadh ummadda Soomaaliyeed oo dhan u dhaxaysa inta badan maaragtay aan qabyaalad jeclayn khaasatan shacabka reer Soomaaliland aad iyo aad bay isu garab istaagtay waxay muujisay in Soomaaliland ay nacbeen abaalkeedina waa tahashay aad iyo aad baan soo dhaweynaa haddaba waxaan in yar isdul taagayo waan kaga bixi doonaa bal walaalayaal soo dhaweyntan waxaa ka soo dhex muuqatay inkastoo aan jeclayn anigu inaan hablaha wax ka iraado inaan England Saalax leeyahay inantaas ama England show Nairobi degan sida la falanqeynayay waxa la lahaa waa dadkii BK showgiisa ka soo horjeeday madaama fanaan kasta oo Nairobi taga ay airport kaga hortagi jireen waxa dhacday inaanay BK kaga hortagin airportka England waxa ka soo dhex muuqatay soo dhaweyntii Hargeysa lagu sameeyay Fatxiye Kabayre cajiib bay noqotay maalin ka hor baan soo galay bay leedahay balse waxay ku soo gashay qaab Doomalaysiya si kastaba ha ku soo gasho mana doonayna si qaldan uga hadlo qof dumar ah laakiin oo xumaan hore in qof xitaa hadduu sameeyay loo qabto ma wanaagsana laakiin anigu waxaan aaminsanahay sidii dadku ay falanqeynayeen inay ka mid ahay dadkii raadka ku lahaa hantida qaranka Soomaaliland fanaanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku faanaan reer Soomaaliland maxamed BK dadkii ku soo xumeeyay Nairobi inay ka mid ahayd ayaan aaminsanaa bal haddaba in hadalkeeda in yar idin dhageysiyo England oo iyaduna ka hadlaysa xilliga ay Hargeysa soo gaadhay iyo waliba qaabka ay maaragtay Hargeysa ku soo gashay kadibna balan isku soo noqon Dhow maanta qofkaan si badan ma jiro waxa isugu yimaaday saxaafadii oo wada dhan wariyayaashii abwaaniintii iyo inta taageerto fanka oo dhan maanta airportkani wada taagan yihiin aniyo mataanteeda Sagal Mustafa Xasan Nuur aniguna habeen baan ka soo horeeyay waxaan lahaa bal farxiye madaarka isku sii taaga marka waxaan ku leeyahay mar kale soo dhow magaalada Hargeysa fankii hooyga iyo murtida iyo madadaalada intaba waa England haddaan hadalkeeda inta kaga soo laabto muhiim aha in qofku hadduu xumaan xitaa hore u sameeyay dib loogu qabto oo lagaga hadlo laakiin waxa muhiim ah in maaragtay qofka ummadda xumeeya fanaaniinta kala saaray ee qabyaaladda iyo cunsuriyadda la dhex jooga fanka iyo ummadda Soomaaliyeed kala qaybinteeda Soomaali oo dhan meel kasta ay joogto anigu waxaan aaminsanahay in Soomaali ay hal sinjeed wadaagaan oo Soomaalinimo laakiin reer Soomaaliland waa Soomaaliland Soomaaliyana waa Soomaaliya in wax la isku qaldamo wanaagsan marka fanaanka haddaad reer Muqdisho hadii fanaanka Hargeysa reer Hargeysa u dhashay calankiisa ku nacayaan taas waa macna waliya bay sameynaysaa iyagana in fanaanintooda lagu soo dhaweeyo Soomaaliland anyway waxaan ku soo gabagabeynayaa Fatxiye Kabayre aad iyo aad baan runtii shacabka reer Soomaaliland ugu hambalyeynaa sida quruxda badan ee maqaamka sare ah ay u qaabileen waxaan rajeynaynaa in Fatxiye ay ku raaxaysato Soomaaliland waxaan fanaan kasta oo Soomaaliyeed meel kasta uu joogo aan fariin ugu dirayaa Hargeysa iyo Soomaaliland ciidiga lama jiraan wadalkeeni balse qof walba wuxuu dhitaysto buu helaa qofkii cunsuriga ku caan baxa qabyaaladii cunsuriyada isagu meel bay ugu qoran tahay kii xumaan si sameeyay kii wanaag sameeyaba
waxaan mar labaad ugu baaqayay shacabka reer Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliland inay martiqaad ballaaran u sameeyaan isla markaasna show kala kacsan u sameeyaan fanaanka Iskalaaji oo cadeystay runtii inaanu ahayn nin qabiyaaladeed iyo nin cunsuriyad ku dheehan tahay waxaan aaminsanahay inuu yahay fanaan aan boggiisa xumaan ku haysan isla markaasna ummadda oo dhan u dhaxayso dadkuna ay u yihiin dad ay walaalo ah intaasaan kaga baxaya waxaan leeyahay Iskalaaji waan ku suganaa insha Allah bidnillaahi kariim inaad Hargeysa ku soo noqoto Soomaaliland ku soo noqoto dalkana runtii waa fanaaniinta aan anigu ku taageero inaanay qabyaalad iyo cunsuriyad aanay ka shaqeyn Soomaaliland ha noolaato shanta Soomaaliyeed ha noolaadaan adban di salaamna subaxii la joogaba sayladaha adduunyadu sixirkay marayaan sarif buu ku go'an yahay socod iyo taraag iyo maxaa ka jira talow muxuu sarifku joogaa laga raysay saaxiib waxa ka soo baxay sayladaha adduunyada sarifkoodu online si kanaan habsaamayn sugan oo xaqiiqa inuu saaka wada yahay ana waxaan sidaahee sariflaha dalkeena midkii ugu sareeyay saaciday dadweynaha waa sariflaha maxamed money exchange ka sarifo lacagtaada sariflaha maxamed laan iyo